taariikhdii 4 raggii anugu ka qayb galay baan ahaa ilaa maalintii barasmuur 9 reerna lagu gubay ciidankii xuseen gooni watay maqtal noo yimid ee uu aadan handal iyo raggii lahaa uu watay ee kabtaan lagu dilay waxaa lagu dilay duqii ahaa cumar xaalis yaxyana wuxuu ku dhiman doonaa bilaale dagaalkii ahaabuu ku dhiman doonaa waxaan isagu wada tagnay oo waagii la isugu geeyey 64 ragga oo dhan waxaa la isugu geeyey lafduur meeshaa geelaa lagu qashaa madaxoo dhan baa isugu timid halkaa isagoon halkan kale la bilaabin baa deedna ragga la qaybiyey xuduudkaa la geeyey qoryo badan oo kale oo la furtayna way jireenoo mid waxaa lagu dagaal wuxuu ka dhacay haroreyso dagaalka hadda badan baa lagu qaaday laba dhuumood iyo greenhof iyo alamaan 3daasay ka koobnaayeen jinaadana dagaal baa laga galay intaasi kolkay dhacday yaa meeshaa lagu qaybiyey mee weli isagoon la qaybinin waalidanku siduu u socdo annagu guraati baanu ka gallay guraati dii qabtaana la yidhi 40 nin annagoo ah yaa la yidhi 40 naasi adduunka waxba kuma lihidine jannadaa doonanaysaan dig baa inaad godadka ugu daadataan waa maalintiina khaliif kurweyn la dilo diyaaradda ay dishay guraati baanu deedna ka gallay oo ciidamo warleer ka yimid baanu isku hellay oo meeshaa dadkii shacabka allaynhaya kabtaa dagaal xoog laanu u geysanay 3 nin baa naga dhaawacantay oo 3 dhibana waanu la baxnay kaarayaal baa la socdoo way nagu soo dhici dagaalkaasina qabtaasu ahaa dagaalla bilaalo ahaayo waa dagaalkii yaxya ku dhintay laba qori hore kolku furta baan idhi kan maanta wuu ku dhiman doonaa yaxye qorigaas isaga oo qaadahaya xamaaladiina dee lagu guulaystay yaa mid gaadhiga hoostiisa ku jiro oo shahaadada dhexdooda yaa ku qarxiyey kabtaasu yaxya ku dhintay dagaalku wuu fara badnaa haye kolkii dagaalku uu sidaa u socdee qaybuu kala lahaa waagii dambe annaga nala kaxeeyey ee ciidamada la kaxeeyey ilaa wajaale iyo ilaa waxaa la daadiyey meesha la yidhaahdo xuduudkaasoo dhan baa la daadiyey annaga ciidankanaga waxaa u xil saaraa sheekh xariir iyo sheekh cabdi xamdulle warleer baana waxaana looga soo qaadi jiray raashinka burcaana looga soo qaadi jiray xabadii u dambaysay
aw kurigana aadan hadal baa lagu dilay galbeedkana waxaa lagu dilay cali badani waa xabadihii u dambeeyey dagaal sidaa u dhacahayey oo meesha la iskaga hor yimaadaba axmaaradda laga guulaysanayay buu ahaa ciidanna wuxuu fadhiyey xanaley ciidanna wuxuu fadhiyey gobleydan kii reer saaq gobley buu fadhiyey saasaa halgalka waagaa yuu ahaa